sanadkii 2010 waxaa si kadis ah u qarsoontay diyaarad nooca aan la wadin ee loo yaqaano daroon, taasi oo uu lahaa Turkigu kana soo iibsadeen Israa'iil. Qarsoomidda diyaaraddan ayaa keentay in Turkigu uu dadaal xooggan ku bixiyo helidda diyaaraddan oo ahayd diyaarad basaasnimo ayna ku jirtay xogo sireed ay ka aruuriyeen ururka PKK ee uu dagaalka kula jiro Turkigu. Laakiin Turkigu awood uma yeelan inuu helo diyaaraddan, taasoo ka dhigtay kuwo garab weydiista Israa'iil maadaama ay iyada ka soo iibsadeen. Arrinta la yaabka ku noqotay Turkida ayaa ahayd in Israa'iil ay awood u yeelatay inay ku soo celiso diyaaradda radaarkii laga maamulayay 15 daqiiqo gudahood, waxayna ka dhigtay Turkida kuwo garowsada in xogta basaasnimo ee ay diyaaradahani aruuriyaan ay toos u gaarto Israa'iil oo iyaduna la socota dhaqdhaqaaqa Turkiga, taasoo ka dhigan inaysan lahayn sirdoonka Turkigu awood ay ku kaydsadaan xogaha xasaasiga ah sidoo kalena sirta ah. Dhacdadani ayaa ka dhigtay Turkiga mid har iyo habeen u howlgala sidii ay u samaysan lahaayeen hubkooda u gaarka ah, sidoo kalena ay ugu tirsanaan lahaayeen wax soo saarkooda difaac. Tilaabadan oo ka dhigi doonta Yurub iyo Maraykanka kuwa si mucangagnimo ah u hor istaaga ayaa maanta u muuqata in Turkigu uu guranayo mirihii ay sanado yar uun ka hor beerteen, laga bilaabo Azerbaijan ilaa iyo Libiya, Suuriya ilaa iyo Ciraaq. Turkigu wuxuu saaxooyinka dagaalka ku soo bandhigay awood aysan reer galbeedku filanayn marna inay dhici doonto maalin ay arkaan dal Islaam ah oo leh cududan. Muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaynu ku eegaynaa sirta cududda difaac ee Turkiga. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo waa Bari Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Inteenan u gelin muuqaalkeena, haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad nagu soo biirtid oo aad taabatid calaamadda subscribe, sidoo kalena aad shidatid gambaleelka si ay kuu soo gaaraan dhammaan muuqaaladeena cusub isla goorta aynu soo gelinno. Haddii uu ku qanciyo muuqaalkuna, ha ilaawin inaad leeg saartid lana wadaagtid asxaabtaada. Mahadsanidin. Aynu u galno muuqaalkeena maanta. Bilowga iskudayga Turkigu uu ku doonayay inuu ku warshadeeyo hubkiisa kana baxo ku tirsanaanta reer galbeedka waxay ka bilaabantay sanadkii 1965, xilligaasi oo uu is-afgaranwaa ka dhex xurtay Turkiga iyo xulafadiisii reer galbeedka. Is-afgaranwaagan ayaa ku qotomay jasiiradda Qubrus oo ay isku haysteen Turkiga iyo Giriigga, waxaana la yeegleelay xilligaasi midow warshadeed u sameeya hubka ciidamadii badda ee Turkiga. Sidoo kale sanadkii 1970 waxaa mar kale la aasaasay warshad farsamaysa agabyada ciidamada cirka si loo xoojiyo awooddooda. Waxaa xigay haddana muddo yar uun kadib yegleelidda shirkaddii la oran jiray Asiliyan oo iyaduna soo saari jirtay hubka difaac ee Turkiga. Sanadkii 1985 wuxuu mar kale u jihaystay Turkigu inuu sii xoojiyo cududdiisii ciidan, taasi oo ay ka dhalatay in 18% uu Turkigu samaysto hubkiisa iyo agabyadiisa ciidan. Lambarkan ayaa maanta kor ugu kacay 70%. Inkasta oo ay shirkadahani soo saari jireen agabyada ciidamada, haddana awooddoodu ma ahayn mid ka saraysa samaynta dharka ciidamada iyo rasaasta fudud, taasi oo ka dhigtay Turkiga kuwa garowsada inaysan ku filnayn intani oo keliya si ay u gaaraan isku tiirsanaan awoodeed oo dhammaystiran. Sanadkii 1982 waxaa mar kale la yeegleelay warshad farsamaysa raadaarada iyo dayax-gacmeedyada waxbasaasa. Sidoo kale sanadkii 1988 waxaa la yeegleelay warshad farsamaysa gantaalada, wuxuuna noqday Turkigu sanadkii 2000 mid la soo baxa hubkiisa lehna rabitaan uu ku rabo inuu yeesho isku tiirsanaan awoodeed oo ay ka sinaayeen dhammaan xisbiyadii ka jiray dalka, ha ahaado muxaafad iyo mucaaradba. Waxaana la soo gaaray sanadkii 2003 xilligaasi oo uu saaxadda siyaasadeed ee Turkiga ku soo biiray xisbi islaami ah oo la yiraahdo Akbarti, hoggaankana uu hayo Rajab Tayyip Erdogan. Xisbigan ayaa ka dhigi doona Turkiga 17 sano gudahood dal ka weynaada soo saaridda rasaasta iyo dharka ciidamada, noqdana awood ay Yurub iyo Maraykankuba cabsi ka qabaan xawaaraha uu ku horumarinayo cududdiisa ciidan. Markii uu la wareegay maamulka xisbiga haatan talada haya ee Akbarti, wuxuu u jihaystay fulinta qorshayaashii iyo yoolashii uu lahaa xisbigani oo ay cinwaan u ahayd isku tiirsanaan dhammaystiran iyo dhisidda awood ciidan oo dib u soo celisa haybaddii ciidan ee dalkan Turkiga. Horaantiiba waxay isku dhaceen Maraykanka kadib diidmadii uu diiday Turkigu ka qayb qaadashada duulaankii Ciraaq ee ay xulafada Maraykanku ku soo qaadeen dalka Ciraaq sanadkii 2003. Sidoo kale waxay mar kale iska hor yimaadeen gumaystaha Israa'iil iyo midowga Yurub,
taasoo ka dhigtay kuwo ku sidhaga adayga himiladoodii ahayd gaaridda isku tiirsanaan awoodeed. rabitaankan waxaa sii xoojiyey cunaqabataynadii isdaba joogay ee uu Maraykanku ugu diiday Turkiga inuu helo hubab casri ah. tusaale ahaan, markii uu Maraykanku ka cagajiiday inuu Turkiga siiyo diyaaradaha daroonta ah, waxay ka dhigtay kuwo ku dhiirada samaysashada diyaaradahooda u gaarka ah. waxayna samaysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar oo aynu badankeen maqalnay wacdarihii ay ka dhigeen diyaaradahani Azerbaijan iyo Liibiyaba. sidoo kale waxaa loo diiday inay soo iibsadaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano Apache, taasoo ku dhiirigelisay mar kale Turkigu inuu samaysto diyaarado helikobtar ah oo u gaar ah isaga. waxayna sameeyeen diyaaradaha Atak oo iyaguna muddo yar kadib samayntooda kor u qaaday cududda ciidamada cirka ee Turkiga. intaasi kuma joogsan cunaqabataynadii reer galbeedku ugu diidayeen Turkigu inay hantaan hubabka casriga ah, balse mar kale waxay u diideen inay Turkiga ka iibiyaan madaafiic iyo sawaariikh, taasoo ka dhigtay Turkiga mid samaysta madaafiicdiisa u gaarka ah, sida madaafiicda loo yaqaano Obis oo wax ka dili kara masaafo u jirta 100 kilomitir, iyo sidoo kale madaafiicda Shinar. haddii aynu ka nimaanno diyaaradaha iyo madaafiicda, sidoo kale Turkigu wuxuu samaystaa taangiyadiisa dagaal ee u gaarka ah. waxayna leeyihiin taangiyada lagu magacaabo Altay. kumana ekaan taangiyadani adeegsiga ciidamada Turkiga oo keliya, balse wuxuu Turkigu ka iibiyey dalal dhowr ah sida dalka Liibiya, Cumaan iyo Qatar. sidoo kale Turkigu wuxuu samaystaa doomihiisa dagaal iyo maraakiib u gaar ah, laakiin weli kama xaqiijin dhinaca badda isku tiirsanaan dhammaystiran. marka laga yimaado in isbuucan aynu ku jirno oo Turkigu soo bandhigay doomo dagaal oo aysan cidna wadin oo iyagu iswada. haddii aynu ka hadalno hubabka yaryarna, waxay ciidamada Turkigu si gebi ahaana u adeegsadaan qoryo iyo bastoolado lagu farsameeyey dalkooda. laga bilaabo askariga jooga xuduudda ilaa iyo askariga waardiyeeya madaxweynaha, waxay wada sitaan qoryo iyo bastoolado lagu farsameeyey dalkooda. halka arrin ee uusan weli Turkigu horumar ka xaqiijin ayaa ah difaaca cirka, oo ma lahan Turkigu awood difaac oo ka caawin karta weeraro kaga yimaada dalalka dariska ah iyo reer galbeedkaba, taasoo ka dhigtay mid soo iibsada hubka difaac ee loo yaqaano S-400 ee uu leeyahay Ruushku. hubkan difaac ayaa ka dhigay Turkiga dal awood ku yeesha bariga dhexe. markii uu soo iibsanayay hubkanna, waxay Yurub iyo Maraykankuba ugu godiyeen Turkiga inay ku soo rogi doonaan cunaqabatayno haddii uu Turkigu ku dhiirado tallaabadan. laakiin dheg jalaq uma siin oo waxay ku dhiiradeen inay keensadaan hubkan difaac oo kor u sii qaaday awooddii difaac ee Turkiga. tallaabadan ayaa ka dhigtay Maraykanka mid ka mamnuuca in Turkiga laga iibiyo diyaaradaha F-35 oo uu Turkigu sanooyin badan isku dayay inuu helo, laakiin uu Maraykanku ka cagajiidayey. maxaa yeelay haddii uu helo Turkigu diyaaradahan, wuxuu Maraykanku ogsoonaa inay meesha ka baxayso cududda ciidamada Israa'iil oo ah cududda maanta ugu awoodda badan dhinaca cirka bariga dhexe oo dhan. mana jiro ilaa maanta dal Carbeed iyo dal Islaam ah oo uu Maraykanku ka iibiyey hal diyaarad oo ah noocan, marka laga reebo dalka Imaaraadka oo bilaabay maalmihii ugu dambeeyey wadaxaajood ay ku soo iibsanayaan diyaaradahan kadib heshiiskii ay wada gaareen dalkan iyo Israa'iil. waxaan idin weydiinayaa, weli ma weydiisan Jarmalka sababta ay taangiyada dagaalka u samaystaan? sima weydiisan Maraykanka waxa uu u samaysto diyaaradaha daroonta ah? dabcan ma weydiisaan, mana weydiinaysaan. laakiin marka laga hadlayo diyaaradaha daroonta ee Turkiga, waxaad dhammaantiin isku beddeshaan kuwo ka soo horjeeda hubka. waxaan idin weydiinayaa, ma waxaad dibsanaysaan in diyaaradaheenna aan duuliyaha lahayn ay difaacaan walaalaheen Azerbaijan, mise inay naga difaacayaan argagixisada oo ay burburinayaan mashaariicdooda ayaad dibsanaysaan? mise waxaad ka xuntihiin in diyaaradahani ay calankeenna ka dhigeen mid ka dulbabada hawooyinka sare? haddii aad intan ka xuntihiin, weligiin ahaada kuwo ka xumaada. isku soo duuduubo, cunaqabataynadii joogtada ahaa iyo diidmooyinkii aan dhammaadka lahayn ee ay reer galbeedku ku carqaladaynayeen rabitaanadii iyo himiladii Turkigu uu ku doonayey inuu ku yeesho cudud ciidan, ayaa ka dhigtay dalkan mid garowsada inaysan reer galbeedku marnaba u oggolaanayn dal Islaam ah inuu kula tartamo cududda ciidan. waxayna ka dhigtay dalkan mid har iyo habeenba maalgashta dhalinyaradiisii, sidoo kalena xoog saara inuu soo saaro jiil u beddela rabitaankii ahaa in Turkigu uu soo iibsado hub, mid isagu la soo baxa hubkiisa oo gacantiisa ku samaysta. waxaa soo baxay dhalinyaro sida Seljuk Bayraktar ku xardhay magaca dalkooda samooyinka sare ee saaxooyinka dagaalka. waxay ahayd Azerbaijan oo uu Turkigu awood u yeeshay isaga oo aan si toos ah
dagaalka ugu jirin inuu soo afjaro colaad soconaysay 30 sano isagoo ku soo afjaray 6 isbuuc oo keliya. Shalay ayay ahayd markii uu Maraykanku ku soo rogay cunaqabatayn Turkiga. Sidoo kale waxaa ka horeeyay maalmo cunaqabatayn kale oo ay ku soo rogeen Yurub shirkadaha difaac ee Turkiga. Cunaqabataymahan maahan cunaqabatayn si gaar ah u taabanaysay dalka Turkiga oo keliya, balse waa cunaqabatayno ay ku doonayeen reer galbeedku inay ku daciifiyaan xuduudda dal walba oo Islaam ah oo ay arkaan inuu gaarayo horumar iyo isku tiirsanaan awoodeed. Waxay ahayd Ciraaq markii uu Maraykanku u soo hogaaminayay xulafadiisa si ay weerar ugu qaadaan iyada oo aan la garanayn sababta. Wuxuuna ahaa tuhunku waxay samaysanayaan hub nukliyar ah iyada oo uu adduunko dhami ogaa in Maraykanka iyo dhammaan dalalkii uu hogaaminayay uu mid walba leeyahay 100 madax oo nukliyar ah. Haddaba maxay tahay sababta dalna u ogolaanaysa inuu yeesho hub, dalna u diidaysa inuu yeesho? Waa sababtii burburisay Ciraaq. maantana ay ku doonayaan inay ku hor istaagaan himilada Turkiga iyo dal walba Islaam ah. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, ma laga yaabaa in Turkigu culeysyadan badan ee uga imaanaya dalalka reer galbeedka iyo dalalka Carbeedba ay ka dhigaan mid ka joogsada himiladiisa? Nagu reeb jawaabtaada ku aadan su'aashan kommentiyada hoose ee muuqaalkan. Sidoo kalena haddii aad soo gaartay halkan, ha ilaawin daawade inaad leeg noo saartid, sidoo kalena aad la wadaagtid asxaabtaada. Mahadsanidin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.